Ruushka oo 40 sano kadib dib u soo celinaya Iskaashigii Difaaca Soomaaliya. Halkan waa Qool Media Tv. Intii lagu guda jiray shirkii madasha iskaashiga Ruushka iyo Afrika ee dhawaan ka dhacay magaalada Sochi ayaa waxaa kulan gaar ah u dhex maray wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar Dambe iyo wasiirka xigeenka difaaca Ruushka Colonel Alexander Fomin. Warbaahinta Ruushka ayaa warbixin ka qortay kulanka dhex maray labada dhinac, waxaana kulanka uu ahaa kii ugu horeeyay laba geesood ah oo dhex mara wasaaradaha difaaca ama waaxaha difaaca Soomaaliya iyo Ruushka kadib burburkii Midowga Soviet. Inkastoo kulanka aanay wax war ah ka soo saarin dhanka dowladda Soomaaliya, haddana wuxuu ahaa kulan dowladda amniyad gaar ah u leh ama ugu fadhiyo marka loo eego arrimaha iskaashiga difaaca iyo ciidamada, maadaama wafdiga uu hogaaminayay madaxweyne Farmaajo ee ka qayb galay shirkii Sochi uu qayb ka ahaa wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya. Wasiirka gaashaandhigga Xasan Cali Maxamed ayaa waxaa kulanka ku weheliyay la taliyaha siyaasadda arrimaha dibadda Balal Cusmaan iyo safiirka Soomaaliya u fadhiya Ruushka. Wasiir Amar Dambe ayaa wasiirka xigeenka difaaca Ruushka la wadaagay xaaladda siyaasadeed ee militari ee soo ifbaxaysa Soomaaliya iyo dowladaha dariska la ah ee Geeska Afrika. Dhanka kale, Alexander Fomin ayaa ku wargeliyay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya arrimaha ku saabsan suurtagalnimada dib u soo celinta iskaashiga difaaca Ruushka iyo Soomaaliya iyada oo la tixgelinayo xayiraadaha saaran Soomaaliya. Sidoo kale, wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya ayaa dhankiisa xaqiijiyay inuu daneynayo horumarinta iskaashiga dhanka difaaca ee labada dal. Midowga Soviet ayaa saameyn weyn ku lahaa dhismihii ciidamada qaranka Soomaaliya, inkastoo xiriirka Soomaaliya iyo Midowga Soviet uu xumaaday dagaalkii 1977 Itoobiya iyo Soomaaliya kadib ay la safteen dowladda Itoobiya. Halkaad nagala socoteen waa Qool Media. Fadlan ha hilmaamin inaad like, subscribe iyo share intaba aad inoo samaysaan. Mahadsanidin.